munaasabadan ay ku qalin jibinayeen in ka badan 200 oo arday oo dhameystay waxbarashada heerka sare ee masterka jaamacadda Islamic University kaasi oo soo qaban qaabiyeen maamulka jaamacadda Islamic University ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabada ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka jaamacadda mas'uuliyiin ka socotay hay'adda horumarinta bulshada oo gacan ka geysatay qaar ka mid ah ardayda dhameystay waxbarashada masterka oo ka bixinaysay qarashaadka jaamacadda. maamulka jaamacadda ardayda wax ka barata jaamacadda Islamic University aqoon-yahano qaar ka mid ah ganacsatada shirkadaha iyo marti sharaf kale. qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Islamic University ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta heerka maanta ay soo gaarsiiyeen. anigoo ku hadlaya magaca ardayda qalin jibisay waxaan u mahad celinaynaa qofka aan dadka ku shukriyo ilaahayna kuma shukriyo marka madaxdayni iyo macallimiintii heerkaas soo gaarsiisay ayaan u mahad celinaynaa. waxaan diyaar u nahay baan leenahay hadafkii ay ka lahaayeen waa xaqiiqoobay. haddii aan nahay ardada ka qalin jibisay jaamacadda darajada koowaadna waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala in aan buuxino kaalin kasta. runtii marxaladii soo mareen marxaladii maadaada ka gudbeen waxaan isleeyahay waa dadaalay sida hore dadka u shaqeyna macallimiin iyo shaqaale iyo waxay ahaayeen mashquuliin iyo reerahoodii ومع ذلك waxay bixiyeen dadaal aad u badan. annaga waxaa sharafnoo inaan ayaga macluumtooda ka mid noqono. runtii waxaan isleeyahay raggu shaksiyana isku naqaanahay waa rag soo dadaalay urumana ahaa waxay loo dhiibayna inay xambaareen aan rajaynaya iyo gudanayaan. waxay ilaaha uga baryaa in marxaladda kana dhameeyaan dadkiina bedeli lahaan ay noqdaan waxaan leeyahay marka yaan ugu mahsanin sida xafladda iftitaaxiyadii Allah oo dadaalka Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Xasan Abu Shayba oo ka hadlay goobta ayaa ku dhiirigeliyay ardayda qalin jibinaysay inay wax ugu qabtaan aqoonta ay maanta ka barteen jaamacadda. ardayda xilka saaran sida ay ku dardaarmeen jaamacaduhu dadka waxay baraan bulshada u adeegaan adeegaas inay ka soo baxaan. waxaa jaamacaduhu inay qayb ka xaliyaan mashaakisha bulshada haysa oo uga xaliyaan xuquuq inay baaraan bulshada maxaa haysa. haddaa qofku waxaa bulshada xuseyn ma shaqo ku lahayn waa cilmi, laakiin waxaa rabaa mashaakisha haysta oo soomaalida haysta xuluusheeda xuquuqda laga wax jirooyin badan baa qabnaa maxaa u daawaa دعوة وعصرها هي جماعة خصوصية هي الناس المشاكل القومية الصومالية الوضع منه حوار واحد. قال الله خصوصية الجماعة هي رحنا حسين لسكاشر تعاون أو الناس ممكن هذا بما كان هي أحمد تور يرى جمعالي oo ku hadlayay magaca jaamacadaha ahna gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya ayaa ku dhiirigeliyay ardayda qalin jibinaysa inay si laabaan aqoontooda. أخواني وحسائي علمي أنا ولا يصابني وحيد دارنا أهل كودي أيامهم. أنا واحد بعيران كملي دارنا أنا بقول لك يسوع بنا أرتي كمية أرتي هذا أي إلا جو لا يهمنا. وحتى العلماء وحتى الدعاء كل ذلك الجول الصبح. وحنا بعدين نقول الرجيم دروس ما الجو وكذا وتحري ظروفيه هاي. علماء نلوه رئيسي نكوه رئيسي تحديات دورتنا وقت أيام فردينيا ما لنا الله كذا نك عالمنا وهو أصلا إنه دنيا تدمير الجوع أو أطلع من بلادنا إنه توقع يدي الدين ونحن نقصفه ولا يسوق بالله بدنا على أساس عليه علماء نكوه رئيسي شيخ وكلنا مثلا شيخ عبد النور شيخ محمد الرومي يا شنو على عون تهدي وطال الصوصة حقيقي قلت لك وأحمد الوقت كلنا ويا مالتي على الإله كله عبادتها لو رحته ويا راح الإيمان تسمع صدق الله صدق أي واحد أرنت صحيح. gudoomiyaha hay'adda horumarinta bulshada Sheekh Umar ayaa ka warbixiyay gacanta ay ka geysteen
waxbarashada ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Islamic University wuxuuna sheegay inay sii kordhin doonaan horumarinta aqoonta ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka. waxaa noo ah haddaan nahay hay'adda horumarinta bulshada inaan aragno ardaydii qayb ka mid ah wax ka bixin jirnay inay maanta takharujaan oo ay darajada magisteerka waddanka ku qaataan. taasna waa ilaahay mahadiis subxaanahu wa tacaala. uma dadaalka ay ardayda bixiyeen ayaa lagu gaaray. taasna waa dadaalkii soomaalidu isku kaashadeen. sidaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyey inaan heerkan hadda la gaarsiisan yahay oo ah in dadkii waxbaranayay ay ka faa'iidaystaan. xagga waxbarashada ama ardayda keliya ma ahan ardayda jawaab-islaamiya wax ka barato keliya calaa mustawa takhasusaadka ay hay-addu ka kaalmaysa ardayda Soomaaliyeed. manaaqibda Soomaaliyana ay ku kala fikirsan yihiin. wadamo badan ayna wax ka kala bartaan. Suudaan ay kasoo taqaribeen dictoorada, Malaysia, Uganda, maxay dhahaan Masar dad qaar ka mida jira. sidoo kale maxay dhahaan gudaha ayay ku badan yihiin ardayda. marka taasna waa dadaal la bixiyey una baahan in la sii kordhiyo. intaasoo dhanna waxaa laga saaciday oo la garab taagnaa hantidooda lagu garab taagnaa muasasada ciidanka keliya ee fadhigeedu uu yahay dooxa waddanka Qatar. ayagana waxaa leedahay jazaahum allahu khayran. gudoomiyaha jaamacadda Islamic University Cabdulqaadir Cali ayaa ka warbixiyay guulaha ay jaamacaddu gaartay isagoona tilmaamay inay si laba laabi doonaan waxbarashada ardayda Soomaaliyeed. gudoomiyaha hay'adda horumarinta bulshada Sheekh Cumar ayaa ka warbixiyay gacanta ay ka geysteen waxbarashada ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Islamic University wuxuuna sheegay inay sii kordhin doonaan horumarinta aqoonta ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka. soo saaridda aqoonyahan karti u leh cilmi-baaris daboolina kala baahida dhigta waddanka. 4 horumarinta barashada luqadda carabiga iyo culuumta islaamiga. 5 horumarinta tayada muasasaadka tacliimiga ee dalka. xiriir iskaashi inay la samaysato muasasaadka tacliimiga iyo jaamacadaha ku yaala dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. jaamacadda asaaskeedii waxaa lagu bilaabay 2 kulliyadood ee kala ahaa kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda shareecada. kulliyadda waxbarashada waxay ka kooban tahay qaybta luqadda carabiga, qaybta xisaabta iyo fiisiska, qaybta juqraafiga iyo taariikhda. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.